bismillahi raxmaani raxiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad nagala jaan qaadaysaan waxaanu ku sugannahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer maanta oo ay taariikhdu tahay 15 Sebtembar magaalada Burco waxa ku soo aadan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ilaa dawladda ee kala duwan ee gobolkan Togdheer waxay si weyn ay uga qayb qaateen soo dhaweynta madaxweynaha hadda waxaanu ku sugannahay barxadda hore ee wakaaladda biyaha Burco ee ugu horeyn mudane maari ku xigeenada magacaaga ku bilaabay bal wax warbixin kooban naga siisa qabka waxa weyn soo dhaweyntan ugu diyaar garowdeen iyo qabka uga qayb qaatay Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn marka hore Khalid iyo TV Star aad iyo aad bad mahadsantiin haddaan taa ku soo dhawaado waxaan uga qayb qaadanay waxaan hortaagnay wakaaladda biyaha Burco waxaan hortaagnay shaqaalaha iyagii oo u diyaara soo dhaweynta madaxweynaha waxaan ku soo dhaweynaa gobolka degmada wakaaladda biyaha annagoo la wadaagayna farxadda aqoon-yahanada ardayda qalin jabinaysa Burco oo madaxweynuhu farxadda la qaybsanayo aad iyo aad bad mahadsantiin TV-gana u mahadnaqay hadii la ka dhigo aad mahadsantahay sidoo kale dhagayga waxa taagan maarayaha wakaaladda biyaha ee Burco baladeysna waxaan wax ka weydiin doonaa dareenkiisa ku aadan soo dhaweyntan ay u sameynayaan mas'uuliyiin iyo maamul ahaan madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdidiisa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين marka hore waan salaamaya bahda saxaafadda garan TV Star iyo dhamaan shaqaalaweynaha wakaaladda biyaha Burco halkan aan taaganahay afaafka hore wakaaladda biyaha Burco oo sidoo hore uu sheegay kala qayb qaadanayno soo dhaweynta farxadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga ballaaran uu hogaaminayo ka soo qayb galaya qalin jabinta jaamacadda Burco ardayda oo anaguna ka ahaa macallin ama u ahayba waxaan leenahay waan soo dhaweynaynaa gobolka iyo jaamacadda iyo heer degmada heer gobol soo dhawaan leenahay soo dhaw madaxweyne ku soo dhawow magaaladaadii iyo ardaydaadii wakaaladda iyo shaqaalaweynuhuna aad iyo aad waxay ugu helayeen inay soo dhaweeyaan madaxweynaha ka qayb qaataan oo ay gacmo furan oo isu taagaan oo ilaa saaka 6 subaxnimo u taagan heegana ugu jiraan gaadiid shaqaalaweyne ilaa heer madaxeed heer shaqaalaweyne waxaan leenahay hambaliyo ardaydana hambaliyeen assalaamu calaykum salaam isuduwaha wasaaradda biyaha ayaa isna dheegayga taagan waxaan wax ka weydiinayaa dareenkiisa ku aadan soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland ay u sameynayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Khalid iyo waxaan soo dhaweynayaa TV-ga Star iyo bahda saxaafadda oo dhan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminayo oo ka soo qayb galay qalin jabinta jaamacadda Burco annagoo bahaweynta wasaaradda horumarinta biyaha halkan aanu taaganay waa afaafkii wakaaladda biyaha dhammaan shaqaalaha wasaaradda oo dhan oo ay ka mid tahay wakaaladdu ka mid tahay waanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay madaxweyne ku soo dhawow gacmo fulan iyo qalbi fulan Togdheer iyo Burco magaaladaadii iyo dadkaagii iyo ehelkaagii